bulshada islaamka ee ku nool aadan yabaal amnigooda hadduu aan lahay amnu nafsi hadduu aan lahay amniga nafta la xiriiro من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أمنك لحريرو شخصك نفسدا تيساه هدو الله إيه هدو الله أمنك لحرير عقلك أو مخادراتك يبلشوا واحد بايو إن لقى إلى عليها ديتها بواجب أمنك واحد كمية قفك إن مال كيسة يعرض يقيس إلى عليها كمية نبينا عليه الصلاة والسلام كعبد الله الله وين بدني دو حرمة هذا وين بدنا balse waxa ka weyn badan oo yiri qofka muslimka dhiigiisa xurmadiisa ka weyn badan oo nabiga kaleey salaatu wasalaam qofka muslimka dhiigiisa sidaas oo qaali u yahay mana laga yeelaa qof bini'aadana inuu yiraahdo qof muslimaan si sahlan ku dilo ayaan xooha qabiil dabada la galaa man daa ila asabiyatin laysa minna man daa ila asabiyatin walaysa minna man qatala ala asabiyatin walaysa minna man mata ala asabiyatin nabiga kaleey salaatu wasalaam naga mid ma aan qofka dadku ugu yeero qabiilka oo yiraahdo anaga reer hebel aan nahay waxa rabnaa waxa sameeynaa dadka naga u laandheeraysan laga yeeli maayo haddaad u dagaalantana walaysa minna man qatala ala asabiyatin qofkii u dagaalama qabiil naga mid ma aan nabiga kaleey salaatu wasalaam walaysa minna man qatala man mata ala asabiyatin qofkii ku dhinta asagoo dagaal qabiil ku jirana naga mid ma qofkaas minna فليس منا أي من طريقتنا وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي وضد الإسلام كما أصلا مرن قفك